salaamullaahi calaykum. Maanta waxaynu isku dayi doonaa inaynu wax ka yara taataabano sida loo xareysto scholarshipka la magac baxay Islamic Development Bank Scholarships ee sanadan lagu dhawaaqay inuu furo yahay. Scholarshipkaasi haddaba oo scholarship sanad walba la furo oo lagu dhawaaqo, sidoo kale waxaa maalgeliya waa dalalka amba ururka ay ku bahoobeen dalalka islaamku. Scholarshipkaasi waxa weeye scholarship sidii aynu hore usoo sheegnay waxa weeye waa scholarship uu maalgelinaya ururka ay ku bahoobeen dalalka islaamku. Sidoo kale ardayga ku guuleysta waxaa la geynayaa dalalka ay ka mid yihiin Turkiga, Malaysia, Indonesia, Uzbekistan, dalalkaas ayaa ka mid ah, Bangladesh, dalalkaas ayaa ka mid ah. Marka waa ku nasiibkiisu siiyo inuu tago. Marka scholarshipkaas waa scholarship full ah, waxyaabo badanna ka kafaalad qaadaya, hadday noqoto dhinaca tigidhka, dhinaca kharashka noloshaada, dhinaca fiiga jaamacadaada, dhinaca caafimaadkaaga, howlahaas. Marka scholarshipkaas waxaa leeyahay ha moogaanina. Haddaba scholarshipkaas processka loo xareysto iyo habka applicationka loo buuxiyo application formka ayaa aynu maanta wax yar ka yara duubeynaa oo aynu isku daynayno wax ka yara taataabano. Bilowga haddaba googlaha aynu tegaynaa, waxaan ku qoraynaa Islamic Development Bank Scholarships. kadibna waxa uu inoo soo saaray kaas cinwaankaas waxa weeye www.isdb.org. kaas ayaynu ku dhufan doonaa. pageka ayuu inoo soo saarayaa, kadibna xagga hoos baan yar wadaynaa. waka wuxuu ku leeyahay dadka the call for new applications for the ISDB scholarship programs for the year 2020 ilaa 2021 is now open. Scholarshipka haddaba scholarshipkan waxaa la furay sanadan 2020 ilaa 2021 ee sanadan soo socda ee lagu dhawaaqay. Sidoo kale waxa uu xidhmayaa February waa bisha labaad sanadka 2020 bishii labaad 8/28. haddaba si aynu u xareysano waxaynu sameynaynaa apply now. baynu tegaynaa. apply now markii aynu ku dhufanay waxa uu inoo soo saaray pagekani waxa weeyaan waa halkii application aad ka furanaysay. haddaba scholarshipkan waxaa loo xareystaa si online ah, waa sida Turkey wuxuu leeyahay Turkey Bursary-ga. marka halkan pagekaas uu inoo soo saaray. haddii aad user hore iyo password hore lahaydna halkaas aad ku dhufanaysaa loginkaas. sidoo kale haddii aad mid cusub samaysiinaysana register here. marka imika mid cusub aynu samaysan doonaa. first nameka haddaba pagekaas ayuu inoo soo saaray contact informationka. pagekaas formkaas ayaynu buuxin doonaa si aynu u samaysano account cusub. waxaynu samayn doonaa magaca shirkadda ayaynu ku diiwaangelin doonaa si aynu kan waa mid tusaale ah. marka last namekana waxaynu ka dhigaynaa agency. tusaale ahaan sanada uu dhashay. halkaa waxaynu gelinaynaa qofku sanadka uu dhashay. waxaynu iska gelinaynaaba tusaale ahaan bisha koowaad. emailka. sidoo kale nationality-ga
halka uu kasoo jeedo dhalashada dalkiisa. sidoo kale genderkana waxa weeyaan lab iyo dhadig uu yahay male. religionna waa diinta hooste islam. sidoo kale numberka shirkadda aynu gelin doonaa 252. adresska sidoo kale mainst adresska ayaynu halkaa gelin doonaa. sidoo kale country of residence, halka dalka uu degan yahay hadda. kadibna haddaba gobolka uu kasii joogo waqooyi galbeed. sidoo kale markaa city hargeysa caasimadaada ay taabanaysaa. submit baad odhanaysaa markaad intaa dhamaysid waad gudbinaysaa. okay, wuxuu ku yidhi thank you for registration complete. waad dhammaystirtay diiwaangelintaadii. haddaba si aad dib u geshid login here baad odhanaysaa. haddii aynu halkan ku qorno dib inoogu geli maayo, waayo waxa uu inaga doonayaa activation buu kusoo diraya. code buu kugu soo diraya gmail-kaaga. markaa si aynu u tagay gmail-kaaga dib u gal. hadda waxaynu eegaynaa gmail-ka uu inoo soo diray. waa ka ugu sarreeya. wuxuu yidhi your registration has been completed. marka username and initial password. username iyo passwordku halkaas uu kugu soo qoray username-kaaga oo gmail-kaaga iyo password-kaaga oo kan ah. kadibna intaasaynu ku gelaynaa. waxaan kusoo noqonaynaa account-keenii. kadibna passwordkii baa soo koobiyeysta halkaasaan ku qortay. ayaan ku dhuftay login. dan wuxuu ku yihi password cusub samayso. horta waxaad gelinaysaa passwordkii hore. markaad gelisid password cusub ayaad samaysanaysaa. haddana submit ayaad taabanaysaa. markaad password cusub aad samaysatid hadda waa inoo galay wajahadii facekii kooban. hadda waynu ku guuleysanay sidii aynu account cusub uga samaysan lahayn islamic bank development scholarshipska. hadda waxa uu inoo galay account-keeni. kadibna waxaad tegaysaa markiiba halkaa profile-kaaga ee tegaysaa. waxaad odhanaysaa update profile. markaynu profile-keena tagno profile-keena ku dhufanay kadibna update profile aynu kusii dhufanay waxaa inoo soo saaray wajahadan ayuu inoo soo saaray. kadibna waxaynu sii teginaa sidan waa sax imika halkii hore ayaan kusoo buuxinay emergency contact. emergency contact waxa weeyaan waa degdeg haddii lagu baahdo oo laga waayo nambarkaaga qof kale oo lala soo xiriiri karo. name of contact person oo qofka lala soo xiriiriyo magaciisa ayaad ku qoraysaa. relationship waxa idinka dhexeeya waa waalidkaaba xaaskaagiiba. address halka uu joogo addresskiisa, telephone numberkiisa iyo emailkiisa. kadibna safe ayaad taabanaysaa. hadda waxaan ku noqonaynaa home-keenii. waxaan tegaynaa apply for scholarships.
view in progresska waxaa la tagaa marka aad dhamaysid application processka, aad buuxbuuxisid, aad doonaysid aad submit garaysid, ayaad doonaysaa kolba applicationkaagu xaaladda uu marayo, miyaa la aqbalay mise weli waa pending oo weli waa waxaa lagu wadaa baadhis. marka halkaas view progresskaas tegaysaa kolba. imika waxaan tegaynaa apply for scholarships, hadda waa bilowkeednu. halkan ayuu inoo soo saaray. hadda waxaynu isku dayeynaa sidii aynu u sameyn lahayn amba aynu u buuxbuuxin lahayn undergraduate scholarships amba bachelor degree. qofka bachelor degree halkan ayuu tegayaa, wuxuu kusii dhufanayaa apply now. markaad apply for scholarships aad taabatay wuxuu kusoo saaray wajahadan amba backgroundkan, kadibna wuxuu ku yidhi ta koobaad miyaad ka mid tahay dalalka ay ku midoobeen dalalka islaamku or muslim in non-member countries amba kama mid tihid. eeg haddii aad ka mid tahay dalalka islaamku ku midoobeen waxaad odhanaysaa haa. miyaad scholarship kala xaraysatay waa maya. kan wuxuu ku yidhi miyaad ogoshahay haddii aad ku guulaysatid scholarshipkan inaad bartid caafimaad, haa waad odhanaysaa checkin caafimaad. kan wuxuu ku yidhi is your proposed fieldka amba aad xaraysanaysid amba aad tusaale ahaan oo kale aad doonaysid inaad soo baratid miyuu ka mid yahay programyadan halkan ku jira, haa waad odhanaysaa submit baad odhanaysaa. you have successfully the quizka yar wad baas garaysay proceed baad odhanaysaa si aad hore ugu sii socotid. okay, halkan aynu nimid. haddaba academic background, high school GPA haddaba waxaad halkan ka dooranaysaa GPA-gaagii secondarygaaga intii aad ka keentay ma 83 ma 93 aad u percentage-kii baad halkan ka dooranaysaa. halkan markaynu nimaadno add courses and marks, halkan waxa aynu gelinaynaa markiskii amba dhibcihii sanadii ugu dambeysay ee secondarygaaga. backgroundkan ayaa inoo soo bixi doona, kadibna courseska magacoodii baynu halkan gelinaa, courseskii mid walba magaciisii iyo markiskii intii aad ka keentayna halkan aynu ka dooranaynaa, kadibna safe aynu odhanaynaa. kaasina waa intaas, then submit baad odhanaysaa. halkan ayaad u gudbaysaa bachelor degree study proposal. halkana waxaad ku buuxbixinaysaa major field of study, waxaad doonaysid inaad baratid. tusaale ahaan oo kale waxaad dooranaysaa education waxbarashada, kadibna education subfield waxaad kasii dooranaysaa education qeybteebaad ka doonaysaa inaad sii baratid, tusaale ahaan technological educationka. sidoo kale do you have any university admission, miyaad haysataa admission university jaamacad ka haysataa, maya baad odhanaysaa. miyaad hadda ka duwan gashan tahay jaamacad, maya baad odhanaysaa. then submit baad odhanaysaa. waxaan u gudbaynaa additional information, waxa weyn information dheeraada ayaad bixinaysaa. halkana wuxuu ku yidhi haddii aad scholarshipkan aad ku guulaysatid, scholarshipkani wuxuu kaaga baahan yahay in aad marmarka qaar aad u safartid dalalka adduunka meesha uu isagu ku geeyo. do you have any reservation which may restrict you from traveling,
miyaad haysataa tusaale ahaan oo kale meelo amba ku xadidaya amba meelo aanad tegi karin miyay jiraan, maya baad odhanaysaa. amba waxyaaba ku xadidaya. Do you have any special physical needs, miyaad leedahay wax adigu tusaale ahaan oo kale miyaad tahay qof handikaaba amba qof illa amba qof gacan la, maya baad odhanaysaa. ta saddexaadna do you have annual income buu ku yidhi or any source of income, miyaad leedahay amba ay jiraan dakhli kusoo gala si joogto ah tusaale ahaan oo kale bille iyo waxyaabahaas amba ilooyin ay kasoo galaan miyay jiraan, maya baad odhanaysaa. halkan marka aynu marayno add language proficiency wuxuu halkan kuu sheegayaa in aad halkan gelinayso oo keliyaata shahaado international ah oo la aqoonsan yahay oo laysla yaqaano adduweynaha sida IELTS, TOEFL iyo wixii kale lamida ee adduunyada laga yaqaano ee la aqoonsan yahay ayuunbaad halkan gelinaysa. waa haddii aad sidatid, halkanaad ku dhufanaysaa kadibna magaceediibadu ayaad ku qoraysaa, readingkii intaad ka keentay, writingkeeda, speakingkeeda, year taken xilligaad qaatay iyo certificate-ka iyo sadaad haysatid. haddii kalena waad iskaga noqonaysaa. halkan waxaad tegaysaa submit ayaad ku dhufanaysaa, kadibna waxaynu tegaynaa halkana waxa weye attachmentska. kadib waxa uu ku yidhi waa inaad upload, waa in aad waraaqad walba oo aad gudbinaysid halkan amba document walba aad gudbinaysid waa inaad asa PDF ahaan inaad ku gudbisaa. national ID ka koowaad waxaad gudbinaysaa uu kaaga baahan yahay national ID amba passport. marka national ID amba passport waxa weye waa passport amba ID cardka la socda. sidoo kale apply certified true copy of birth certificate, waraaqadii dhalashadaada, shahaadadii dhalashadaada waa inaad halkan ku gudbisaa. waa inaad sidoo kale shahaadadii caddeynaysa caafimaadkaaga oo amba dhakhtar kasoo qaatay amba hosbitaal doctor amba hosbitaal. upload certified true copy of high school transcript. sidoo kale waa inaad kan halkan aad gudbisaa school transcriptgaagii amba darajooyinkii iskuolkaaga. sidoo kale English language proficiency certificate, IELTS, TOEFL and ATC. halkana waa inaad ku gudbisaa shahaadada Englishtaada, kadibna submit baad odhanaysaa. declarationna waxa weeyaan waxaad qiraysaa un intaa inaad wada tigta wada saartidun. waxa weeyaan I certify that information kan gudbiyo inay sax yihiin, waxyaabahaas aan wax beena ku jirin. sidoo kale oo inaan ku qancaa jawaabta ay siiyaan selection committee-gu, waxyaabahaas marka submit ayaan odhanaya. kadibna waan wada gudbiyay applicationkii sida u dhamaystirnaa, then application summary baan odhanaya, kadibna wuu ku dhowaan garaynaya. home ayaynu tegaynaa. homekii markaynu ku dhufanay halkan ayuuna keenay. marka applicationkeena si aynu ula socono halkan ayaynu tegaynaa mar walba view in progress. halka uu marayo kolba miyaa la aqbalay mise weli waa pending oo weli waa la baadhaya. marka kaasi wuxuu ahaa undergraduate degree amba bachelor degree sida loo xariisan laha Islamic bank development scholarshipskii. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.